السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhamaantiin mar kale iyo barnaamijyadeena aynu kaga hadli jirnay arrimaha bulshada aynu isleenahay way taabanayaan. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaad arkaysay dad fara badan oo ka cabanaya xanuunada gariirka iyo inuu controlku ka lumo jirka qaar badan oo kamid ah ama gariiro yaryar oo iyaguna wax loo yaqaano simple clones ama loo yaqaanaba twitches oo iyaguna ah waxyaalaha yaryar ee aan macno badan ku fadhiyin laakiin dadka qaar ay u arkaan inay dhibaato weyn tahay. Waxaynu u kala qaadi doonaa laba nooc oo waaweyn, mid iska okay ah oo loo baahan yahay inuu qofku ogaado inay tahay waxyaalo normal ah, iyo gariirada qaar oo iyadu ah qof ama hordhac u ah xanuuno jira oo jirka ka jira noocay doonaan bahaadaan, qaar la xiriira maskaxda, qaar dareen wadayaasha la xiriira, amaba ha noqdaanba qaar la xiriira dhiigga iyo waxyaalaha uu ka kooban yahay sida calciumta iyo waxa lamid ah, ama waxyaalaha ku dhex jira dhiigga ee aynu u naqaano macdanta Soomaaliga malaha taasaa ugu habboone. Mar labaad iyo mar saddexaad baa soo dhawaada. Waxaan rajaynayaa in haddii ay tahay markii koobaad ee aad channelka soo booqato ama aadna aragto inaad na dhiirigeliso oo aad si uu u gaadho dad ballaaran, hadda like-ta iyo share-ta aad noo taabato oo noo share garayso dad badan si uu u gaadho videogan yareen isleenahay insha allahu dadka ciddii uu ilaahay ku anfaco ha gaadho. Waxyaalaha aynu dul istaagi doono waxaa ka mid ah dubaaxinta qayb ka mid ah. Runtii fiidiyoyo waqti hore ah dhowr sano ka hor laga yaabaa inaan ka hadalay iyaga oo kooban, mana rabo hadda inaynu kolley sii ballaadhino oo waqtiga ayaaban inoo saamaxaynin, laakiin waxaynu eegaynaa waxa la yidhaahdo gariirada yaryar ee fudud. Waxaa ka mid ah masalan qofku marka uu habeenkii hurdo, haddii uu dhaqdhaqaaqyo yaryar uu sameeyo oo aan ahayn kuwii normalka lagu yaqaanay, gaar ahaan waliba ciyaalka yaryar ayaa aad loogu arkaa marka ilmuhu ilaa 2 bilood ilaa iyo intuu sanad gaadhayo. Waqtigaasay ku badantay markaysa ilmaha oo ama isagoo soo yara booday oo gacmaha iyo aad dareemayso ama lug yara ay yar booday, waxyaalaha caynkaas ah oo aan ahayn wax joogto ah laakiin marmarka qaar ku dhaca. Taato lamidii dadka waaweyn xilliga aynu hurudno way ku dhacdaa ama xilliga uu qofku soo tooso oo kale. Waxa kale oo laga yaabaa in mararka qaar qofka oo muddo dheer soo jeeday awgeed ama waxyaalaha wax cariye ka mid ah cabaysada shaaha oo kale ama kofeega oo kale inay taasina cariso qayb ka mid ah jirkiisa sida indhaha iyo agagaarkooga ama dhegaha oo kale, waxyaalaha qaar lamid ah iyagana. Okay, kuwa waxaynu odhanaynaa waxa weeyaan kuwa iyagu iska normalka ah ee aan dhibaato weyn oo laga warwara aan jirin. Haddaba kuwa waaweyn iyada loo baahan yahay in la ogaado waxaa ka mid ah loo yaqaano epileptic myoclonus. Epileptiga waa sidaynu u naqaano qalalka ama suuxdinta ama waxa lamid ah, iyaduna dhowr nooc bay leedahay, wayna kala awood badan tahay ama kala dhibaato badan tahay. Kulley iyagana haddii la yiraahdo mid walba goonidiisa oo dul istaaga iyada oo qura ayaaba mawduuc dhan noqonaysa. Kaasi markaa haddii ay dhacdo oo qofkaasi uu isku arko inuu horta miyir doorsoomo, gariir fara badanna uu jirkiisa ku arko oo isku soo ururo, dadka agagaarkiisana marka uu soo kaco ama soo naaxo ay u arkaan in u sheegaan inuu qofkani xaaladaas oo kale ku dhacday. Xaaladaha ugu adag ee epilepsiga aynu soona noqnoqoto oo hal mar wax dhacay noloshiisa ayna ahayn laakiin wax soo noqnoqda ay noqoto, waxaa loo baahan yahay inuu isla markaaba dhakhtar u tago si dawooyinkii suuxdinta ama qalalka uu qaato. Secondary myoclonusku waxaa laga yaabaa in uu saameeyo meel jirka ka mid ah laakiin ay effectiga iyo saameynta ay ku leedahay meel kale, gaar ahaan